بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ولا له جماعة الصوماليات إن مرسل يمدي يفهد ياسين وذكتين إلا حل الله بين هراء وحي وفديين شر عن كلا جوينين ولقى جار هاي دور الشذا وضمك مركب محي كدرس الشذا اللي شيء هاي محيته فرماتشو وحو يري حتى أي ديدان بطلين يشوبالين سيدي السجا أي هراء أكورد أيو أهايين وكدحيي إن دولة كده واقع دونتو إني لبسانو كدرساتو مركا إن داهر جل واحد لي ووشاجي إن تاسك بدن قف بالآذنة وناك لو ما موتشن كرو وحوري مدحوين السياسيين بانهاي دك السياسة دل قاعدين لهيت بانكناي ووزير كورو ورفع فينتا وحوري ودن كادو ملهيت والقول اللي هي كل جانا حل كام صارنو داد مدحوين تهاي وإن أمد لو ذاكتا ودور الشذا عدالة داد كحكتا oo maaragtay aad soo dhaxdhigtaa ummadda Soomaaliyeed marka in musharaxa madaxweyne daahir geelle waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay hadanahay ummadda Soomaaliyeed oo qurba joogtada ku dhageysanaysa sida wanaagga iyo sharafta leh aad ula hadashay madaxweynaha Soomaaliyeed marka maxay tahay shirkan la sheegayo oo maaragtay qaramada midoobay ay ka hadleen oo saakanka Ingiriiska uu ku dhawaaqay madaxweynaha inuu ku shuban karin shir loo dhan yahay oo rally laga yahay that way UK tree shir loo dhan yahay ma aragtay oo la isla ogol yahay in ay ku dhawaaqdo sida madaxweynuhu hadda uu ku socdo in ay qalad tahay ay UK ay yiraahdeen madaxda UK oo ma aragtay Ingiriiska marka maxay tahay ma aragtay ku shubashada qarsoodiga in qorqor حوي أنا كوارد نوحو يهاي وإنا فرماتشي وإنا قالوا الوطن أو قل مدو قدن دعي أو قل مدو قدن دقالوه دي قيامي أو قل مدو قدن نمان طلع وحوقا العاق السيوي ورطل بالي فيسبوك يدا قالوا إيقاد دافعوا دكدا إيا بنتي دي هلاقا شاكيو بابور باكسو دقان يسو وكانوا وكستا كسو دقان كارو ووحا نسعون كريم ولا أنا كو حربنا دكد إنهن معلن ويهين والعاقها دادك لوغا قاضي أيان دونينا يدسان لو ما باهنو نن حب انتو قاطي حب وانت كسو جيدها يا بابور necessary maahan looma baahno waxa loo baahan yahay dekad ah oo dhisana u baahannahay annagu oo ilaa hiiraan ilaa shabeelle gaari kartaan u baahanna no wax la iska koobkoobahayo marka aan ku soo noqono tii siyaasadda mucaaradka ku darsashada maxay ka leeyihiin labada sano oo farmaajo uu raadinayay si kheyraadka Soomaaliyeed oo u gado oo gaalada iyo lacagtii oo dhacay iyo 1 bilyan waxa la yiri bilyan iyo wax la jira weeyaan lacagta maqan oo Soomaaliya ka maqan laakiin anigu saaka waxaan inii cadeynayaa da more than bilyan inay ka maqan tahay ugu yaraan 4 bilyan iyo wax la jira ayaa ka maqan qasnada Soomaaliya oo bangiga dhexe ah in waxaan kala xisaabtami kartaan in gulwada waa tuushale ninkii la dhahay afgooye waa tuushale hadlahay long time oo hadda yeer ka soo wareegto ayaan ka hadlahayaa anigu dhaqaalaha wadanka in la saaray oo la dhacay oo baaxmushtar iyo business oo gashaday maxamed cabdullaahi farmaajo okay qayra waa taagan yahay waa joogaa la xisaabtan lama weynahayo waa la wada xisaabtamaya adinkoo raalli iga ah suulkan iska geliyay marka waxaan leeyahay maxay tahay marka waxyaalaha socda oo hudhuduhda maxay tahay farmaajo in ay u hergasho inuu ku shubto waxado oo nabad sugid seminar aan u furay oo yiraah we don't care Soomaali baan nahay annagu seminar uma aada furin xildhibaanada fadhiisanaya annaka soo xulanayna xildhibaanada baarlamaanka ayaa dooranaya madaxweynaha Soomaaliya marka ayaka ayaa goboladooda ka soo baxayaan nabad sugidda aad annaka noogu waxaynayso in ay xildhibaanada dilaan ama cajujuubaan ama kuugu shubaan adiga farmaajo waa ka diidnay farmaajo ma naga xog badan tahay farmaajo 8 February lagu wada sugaya 7 midnight-ka markay 8 automatically saacadu ma aragtay isbedesho taariikhdu ayaa lagu fadhiyaa inaad wanday ku sii jireenin maxay tahay waxa ka hadlaysid waa laga xog badan yahay waa laga ciidamo badan yahay Soomaalinimadii Soomaali diidan soo qabiilooyinkii Soomaaliyeed naag adag ka daran rufiyaan intaad noqotay intii Mareykan aad joogtay oo ma aragtay human right-ka iyo siday wax u jiraan iyo aad ka soo faa'iideysan lahayd bilaadanimadu waxay tahay iyo siyaasadaha adduunka ka socda ayaad waxaad adigu ku soo takhallustay oo hargagax ah u soo goosatay rufiyaannimo naagu ay ka tagtay nin rufiyaana waa wax mucjisa we know hadda inay raggu naagaha ka hadal badan yihiin laakiin waxaan ognahay adigu rufiyaan
calan taagtay ayaa noqotay maxamed cabdullaahi farmaajo am so sorry aan ku leeyahay inaa qabiilooyin isku dirto inaa jilib iskugu dirto inaa gobollo islaameed billaqso inaa dhaqaalihii waddanka lagu dhiibto billaqaysto wax bal aragga aad leedahay waxaa la yidhi unkiisu ku deeqo araggiisu ku deeqa ayaa la yidhi unkaadii baan ka ashahaadanaynaa iimaan inaada lahayno markaad saas kursiga ugu soo fadhiisatay bidaartii halkaas maraysay ayaa dhaqaalihii waddanka aad ka beeratay ma waxaan kuu keennay inaad madaxa naga beerato iyo timo mise waxaan kuu keennay inaad shaqo abuur mutacalimiinta dariiqyada daadsan aad shaqo abuur u samayso aad furto shaqooyin midna kama aada soo shaqayn saad lacagtii aad waagii ra-iisul wasaarenimada aad ahayd oo maraykan aad ku noqotay iyo kenya dhaysa lacagaa buuxda soomaaliya ya inaad lacagaha dadka oo la rabay inaad dalka aad ku dhisto iyo dadka inaad dhacdo oo 4 bilyan iyo wax ka daran ay ka maqan yihiin dhaqaalihii bangiga dhexe adiga iyo asxaabtaada aad ku tamarfasheen war xaggee laga dheelaa ninba ninka kale intuu ka jaahilsan yahay ayaad mas-uul u dhiibatay waa waxaad ugu talagashay balkee nin mutacallina markaad meel fadhiisin leed wuxuu ku dhihi lahaa madaxweyne waxaanu waa qalad taas baad ka cararaysa adigu taasaan leeyahay farmaajo iyo fahad yaasiin iyo mursal waxay ku gaareen go-aan mursalkii inii imaanahayay oo taleefonku jeebka ugu jiray fiiriya nin kasta oo farmaajo ka socda oo wadahadal ka hadlahaya waxaan leeyahay xisbiyada iyo madasha ha soo dhawaysanina codkiinuu duubahayaa soo u sii wadana maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu dhegaysiinaya qaar waxaa loo soo geliyay qalimo jeebabka ku jira oo makrofoonno ah qaar waxaa loo soo dhiibay taleefanno oo fahad yaasiin leeyahay inuu jeebabka gashado war maca ra-iisul wasaaraha taleefannaa loo dhiibay si loo ogaado waxay ku hadlahayaan puntland marka dowladnimada iyo cadaaladda aan raadinayno maxay tahay soomaali maxamede waa dowlad corruptiona waa dowlad tuugaa waa dowlad oo ciidankii wuxuu ka dhaadhicinayaa soomaalidu inay qarandumis tahay ciidanka waxaa la rabaa ma madaxweynaha waalan mise shacabka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada waalan waxaan leeyahay galmudug farmaajo wuxuu yidhi anaa iskale gacantayna iigu jiraan waana iigu shubahayaan galmudug waxaan rabaa waxyaalaha ka socda ma aragteen in hirshabeelle inaad samaysaan inaad kala go'daan inaad meel istaagtaan bal ninka 2 sano ku darsan kara ama maalin ku darsan kara oo 4 sano dhiiggii hawiye la degtay oo dhiiggii hawiye qaba oo ciidamadii hawiye wada ruqseeyey oo ciidamadii xirxiray oo xabsiga muqdisho oo buuxo ayaa wuxuu doonayaa inaan 2 sano ugu darno indha adeeg calashaan yaa layla xisaabtamin aan khayraadka batroolka aan saxeexo anigu oo gaalada ajnabiga aan u shaqaynayo lacagtana ka haday aan maaragta aan siiyo wax kale farmaajo u raadin maayo weligiis kama shaqayn farmaajo wuxuu kursigaas ugu soo fadhiistay dad ajnabiya ayuu u shaqaynayaa uu rabaa inuu u boobo khayraadka waddanka soomaaliya uu rabaa marow axmed madoobe isku taago marow galmudug lugta mariyo marow hirshabeelle lugta mariyo marow koonfur galbeed lugta mariyo marow xamar ku galgasho farmaajo wixii loo idmaday ma uuna samayno wuxuu sameeyey wax gaalo ay farayso oo asaga dabada ka riixaysa oo ortodoosa inuu u dhaco dhaqaalaha waddanka soomaaliyeed ku jira wiil iyo gabar midow ka waxaysanaya male mid kalena waxaan rabaa inaan nila wadaago nimankii la dilay oo mareexaan 25 beri ka hor ayaa qaar dharka ciidamada la siiyey garaadahana la siiyey saraakiil laga dhigay bishaan aan ku jirno dhammaadkeedana waxaa loo ballan qaaday lacagtooda mushaharka in la siin doono macawisleeyay ahaayeen waa markaan runta inii sheegahay nimankii dhintay waa niman lasoo miineeyey oo lasoo diray oo macawisley ahaa oo laga ballan qaadana inay lacagtoodu saraakiishaas ay u bilaabanayso dharka la siiyey in maanta gudahood meel ay ka yimaadeen ay kasoo baxeen lama yaqaano maal shabaabay ahaayeen wiilasha mareexaan oo la dilay mise dad kale ahaayeen waxaan isweydiinaynaa mareexaan waa kaxaarka daadinahaye oo mantagahaye idaacada facebookyada dhexdooda mahawiyihii la dilay may ka xinayaan badiyaan dadkooda cabdiraxmaan cabdishakuurna mid baa inii sheegahaya waxaan dhacay waa wax fahad yaasiin iyo farmaajo ay ka dambeeyaan nimanka mareexaan in la dilo farmaajoa ka dambeeya markii hore al-shabaab bay ahaayeen macawisleey ay ahaayeen ciidamada dharkoodaa la siiyey saraakiil baa laga dhigay waxaa la yidhi bishaan mushahar imaankii kama ay qaadan dowladda bishaana loo bilaabahaya marka waxaa inii sheegahayaa nimankii sacad oo bacadweyn ay ku dileen mareexaan ayagoo afka soo duubtay oo baabuurtii sacad ay ku dhaceen ma laga hadlay mareexaan niman baa la dilay saraakiil baa la dilay saraakiishaniyaa la dilay saraakiil gaadni
جاهلين عربو جحجحيين أهاينا يا وريا ما يسراكيشي لونج تايم أقول وقولك عبد الرحمن عبد الشكور كوان جناسة بكتو كتينة أنا ميت كود فران لقوهين ناوي أو ناك حامل هذا إذا سيدي بلاد هاي ورجعت كل واحد دكتين تليفون هذا يكبودي كوان وابا نقتينو انت نقدين أيابا كفانتينو ودك كودي أقون صدين ولا دوكتين كو حجر ملء يكون دوغنين أن لوجين مرحان مسكحدي النفورة إيه كشقيسية من كان اللي يري ولا الكيس يجري ووالنيا أو مريكن كتشوجا دم عصير iyo habarta xabeebta leh oo waalano farmaajo ilmaadeerkiina isku jilib hoose yihiin iyo wiilkaan yaroo jooga meeshaan iyo ragga xaarka cunahaya iyo annaku dadkaas ma maqalno talbeelayay hawiyo waa dhammaaday hawiyo dhakhaatiir ma laha hawiyo askartoodii waa la dhameeyey askartoodii dhabarkaa laga toogtay askartoodii hawiyo dabaqyaa laga soo riday askar maxaa la yidhaahaa dhakhaatiirtoodii waa la bireeyey yaa bireeyey niman mareexaanaha bireeyey شكله بنانك يصاب حدا وحلا قرنا يدم بماله قير قفنا مدري قير ما ديه كرو نين هوية أو نختاره أبقى العسمانة هلا صبري ما ديه كرو شكله واحد كده بيا أفضل يدا مريحان وفرماتش العتي مشاركة كقاد طول بالي يا هويو ما واحد قبل ويدين نينك مسكح ذا كتير أو mental disable كأ أو إذا ما دي أنك نحدو ذا corruption كسميه ما عرفت تنسركيش جنونة مريحان يوتاتاجن ولا إسكسي يا جرادان علمي اللي ينملك دوبيدي laga keenaa yaabid waa yagado wariya meesha cilmi baa loo baahan yahay ana waxaan leeyahay hawiyo waa baabay marixaan everball naga dhigay sanadka maanta waxaan ku xishmadaynay shaatiga farmaajo ugu jira wuxuu ka bilaabay saraakiisha hawiyo inuu baabi'iyo maxaa la yiraahaa in jannada hawiyo baabi'iyo wuxuu ka bilaabay inuu kabahoodii iyo dharkoodii ku duugo inuu dhabarka ka toogto oo baabuur soo saaro yiraa hotel halkaan waxa badan ka dhaceen hadda villada dhexdeeda laga soo toogtay yaa tooganaya nin sarkaal oo la yaqaano oo marixaan oo villada ku dhex jiray ayaa toogtay ninkii shariif ee isku ehelka ahaayeen naagiyawiye waa dhamaadeen mid dabaq laga soo tuuro la xoogo mid ayadoo umula la dilo mid ayadoo uur la kufsado ilmihi hawiye mid la fuulo 9 jira mid 3 jira la bireeyo 14 jira laga dhigay inay al-shabaab yihiin marixan waana dhameeyeen sanadka maanta tolbeelaya ya hawiye tolbeelayo hawiye waxa dhacaya ma waadan arkay soo wuxuu rabaa 2 sano inuu ku sii shubto tolbeelaye ilinta iga socoto tolbeelaye hawiyo gabdhihiinni waa la kufsaday islaamiyiinni 7 jirka ceelasha lacagtina waa laga dhacay waana la fuulay ninka 20 jirka oo 70 jir haweystay maxaan ka sugaynaa oo hooyo aabba alle waa xaaraana lagu dhal macsidooda badan cidda macsidooda waa iqabaa ayagoona ninku qabanay la tumanayaan ku leeyihiin waana qabaa markaas habraheenni 70 jirka ah oo hawiyo masaakiinta ah oo ma aragta toobada ku jiray oo qabrigooda sugahay ayaa 20 jirka marreexan fuulahayaan ceelash tolbeelayay aw dhalinyaradii hawiye ma weyna dhig lahayn aan ku leeyahay marka marreexan saraakiishiini intuu dilay kabahoodii ku duug intuu dhakhaatiirtiini dilay kabihii ku duug wiilashiini yaraa inta la kufsado oo dabada laga fuulo ayaa waxaad aragtay sameynayaan saraakiil raggan ma aragtay ciidanka marreexan war tolbeelayay marreexan maad iska qaban weydeen ayaa ka dhan waa 4 mukulaalood maanta facebookana waa idin sheegi doonaa qabiilka ay ka soo jeedaan iyo meeshay ka yimaadeen waa igu ballan ilaahay inaan idin sheego marreexan waa u aamusnay waa u laqnay ciilkayaan u laqnay candhuufteeniyaan dib u laqnay ciidaan u cunnay war gabdhaheenni ay dhameeyeen oo 17 jirkii gabdhaheen ahaa ay kufsadeen dabaqay ka soo rideen marreexan war islaamihii 70 jirka ahaa ayaa 20 jir marreexan fuulahayaa ceelasha in adeerkaybaa wuxuu yahay ma aragtay madaxweyne adeerkayba soo fuuliye ina carayse maxaa aniga ii diiday inaan gabdhaha hawiye fuulo dhalinyaradii hawiye xaggee joogtaan war maadan diin iyo iimaan lahayn war maxamed cabdullaahi farmaajo ma waadan diin iyo iimaan lahayn aad iskaga qabataan war maanta wuxuu yiri anigu gaalan u shaqeeya aan hadalka ka qaataa yiri dad madmadow oo Soomaali la yiraahdo dawlad goboleedyada Puntland ma rabno hawiyana dhigtayda kuma dhacays hawiye waa nasab waxaan rabaa hawiye nasabnimada shaatiga intay siibtaan hal mar meel sura ee ciidamada marreexan iska qabta oo islaamiyiin 7 jirka ah fuulahay 7 jirna fuulahay 2 jirna fuulahay 9 jirna fuulahay
oon wiil iyo waayeel aanan aqoonin inaan iska qabanno soo maaha ninba waa maalintii tolbeelaya mahawiyad 70 jirkiisii loo dhacay in la fuulo waxaan u sheegayaa in markaan ku soo noqdo xagga siyaasadda mursal iyo farmaajo iyo fahad yaasiin waxay wadaan qorsho